haddaba dhaawicii shilkaasi soo gaadhay cabdilkariim waxa uu ku keenay inuu dhegta bidix wax yar uu ka maqlo oo uu maqalkeedii hoos u dhaco. waxay u sameeyeen samaacad yar oo uu dhegta gashto. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. ويل دلير oo aan hadli karin hadalku ka xidhan yahay balse qur-aanka ku akhrinaya cod aad u macaan sidoo kalena ku dayanaya quraada waaweyn qaar ka mid ah sida Dusari, Sudaysi iyo Shuraym. waa qisada aynu maanta soo qaadan doono insha Allah taala. cabdilkariim muxsin cabdiraxmaan waa wiil dhalinyar ah kaasi oo qur-aanka ku akhrinaya cod macaan laakiinse uu ka xidhan yahay hadalku. qisadiisu waxay ka bilaabmaysaa 21 sano ka hor isagoo yar. waxa uu ku dhashay waddanka Sacuudiga. wuxuu la noolaa labadiisa waalid iyo 10 ka mid ah walaaladii. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ku dhacay shil gaari. shilkaasi waxaa ku dhintay labadiisii waalid iyo 7 ka mid ah walaaladii. isaga iyo 3 soo hadhay waxa ay ku jireen dhakhtar Sacuudiga ah halkaasi oo ay ku jireen muddo sanad ah. sanad kadib waxaa kafaalo qaaday aabihii saaxiibadii oo iyaguna sanad hayay. intaa kadib waxaa dalbaday adeeradii in loo keeno oo ay iyagu la wareegaan mas'uuliyadooda oo ay koriyaan. waxaa la keenay waddanka Masar. mas'uuliyadoodina waxaa loo wareegay adeeradood. haddaba dhaawicii shilkaasi soo gaadhay cabdilkariim waxa uu ku keenay inuu dhegta bidix wax yar uu ka maqlo oo uu maqalkeedii hoos u dhaco iyo in uu hadalkiisii uu ku dhegdhego oo hadalku ku cuslaado. iyadoo sidaasi ah ayaa uu markii uu weynaaday cabdilkariim waa uu shaqo tegay. waxaanu ka shaqayn jiray meel biraha lagu garaaco oo lagu googooyo halkaasi oo uu ka bixi jiray sawaxan aad u dheer oo birta la jarayo iyo mashiinada lagu goynaya ah. waxay ku keentay cabdilkariim inuu labadiisii dhagoodba waxba ka maqli waayo sidoo kale hadalkuna uu ka xidhmo. dhakhaatiir walba waa la geeyey laakiinse waxba waa ay ka qaban kari waayeen. waxay u sameeyeen samaacad yar oo uu dhegta gashto oo uu wax ku maqli karo laakiin hadalkii ayaa ka joogsaday oo xal loo waayey. waxa uu dareemay murugo. cabdilkariim isagoo ka sheekaynaya qisadiisaasi oo qoraal ku sheegaya ayaa waxa uu yidhi habeen habeenada ka mida ayaan riyooday. waxaan ku riyooday nin maryo cadcad xidhan oo gar weyn leh. kadibna waa uu kaxeeyey. waxa uu igu yidhi hadli maysid oo hadalku waa kaa xidhan yahay laakiin waxaad ku dadaashaa inaad qur-aanka akhrido ilaahay baa ajar kugu siinaya. waxaanu u sheegay inuu ku celceliyo aayaad ay ka mid tahay laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi والمغربي إلى آخر الآية. وحاو بلابي إنو آيات كاسي كعل عليو قرآن كان أو أخريو. وحاو يلي وحان دريمي راحو نفسيه هي قلبي جيو إيدقي سيدو كلنا عدكيسي أيو قرآن كو أخرينيا ما هدلي كروه لكن هدي الله إلى قرآن كأخري وحاو كو أخرينيا عد آدو معان فلا ينو ودلقي سنو بيقولي عايز تقول حاجة؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أولم يرى الإنسان أن
إنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. عبد الكريم محسن walaalkii ka weyn ayaa waxa uu sheegay in uu yaraantiisii qur'aanka xifdiyey oo uu bartay. Waxa uu noqday arrin mucjiso ah, qof aan hadli karin, dhawaaqi karin, waxba sheegi karin, laakiin haddii la yidhaahdo qur'aanka akhri ku akhrinaya cod dheer oo tajwiid leh oo macaan, weliba ku dayan karaya quraada waaweyn qaar ka mid ah, waa arrin mucjiso ah. waa arrin ina tusinaya awoodaha ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka qofku hadduu qur'aanka barto ku dadaalo, ilaahay baa xifdinaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala wiilkaa dhalinyarta wuxuu u xifdiyey inuu qur'aankii akhrin karo. nicmo ka weyni ma jirto inuu qur'aankii akhrin karo, dadka tujinayo, oo xataa ay masaajidada qaar uu imaam ka noqday oo uu dadka tujin karayo. waa arrin cajiib ah. marka waxaa laynaga rabaa innagoo hadlayna, wax walba karayna, ayaan haddana isugu taag helayn inaynu qur'aanka akhrino. waa nicmo weyn iyo jaanis weyn oo uu qofku haysto inuu qur'aanka barto, ku dadaalo oo xifdiyo. haddii aad barato, ilaahay baad ajar weyn ka helaysaa, ilaahayna wuu ku xifaadaynaya. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiisu macnihiisu yahay ilaahay waxa uu leeyahay ehel. saxaabada ayaa ku yidhi waa ayo kuwaas rasuulka ilaahay iyagoo yaaban. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ahlulqur'aani ahlullaahi wa khaasatuh. dadka ahlu qur'aanka waa ahelka ilaahay iyo addoomahiisa ilaahay u khaaska ah. haddii aad qur'aanka xifdidood barato, ilaahay wuu ku xifaadaynayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.